golayaasha deegaanka madax dhaqameedka dhalinyarada haweenka iyo waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada gobolada galbeedku sidoo kale markii ay si dheer u darseen ee u baareen deegaan xaaladda maanta taagan iyo duruufaha iyo waayaha inagu gadaaman ee mandaqada sidoo kale markaan aragnay go'aanka odayaasha beelaha ee shirkii burco ee ahaa 18 madax dhaqameed oo u qaybsanaa 9 xubnood oo beesha dhexe ah iyo 9 xubnood oo beelaha darajada ah go'aankoodiina laga gudbay markaan aragnay xukuumadda xukunkii maxkamadda dastuuriga ahaa in hal mar lagu galo qoondada kuraasta doorashada golaha wakiilada ee 2005 markaan aragnay in shuruucdii dalka lagu tuntay oo la iska indhatiray waxaan go'aaminay sida hoos ku qoran go'aamadii in saami qaybsi la'aan aanay doorasho ka qabsoomayn gobolada galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka labaad bulshaweynta gobolada galbeedka waxaan ku dhiirigelinaynaa kuna adkaynaynaa inay adkeeyaan xoojiyaanna nabadgelyada iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ta gudahooda iyo darisyadooda isla markaana xuquuqdooda u soo bandhigaan si aan curfi iyo amni darro toona lahayn qodobka saddexaad waxaan uga digaynaa beesha caalamka iyo daneeyayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ka taageera doorashooyinka in ay kharash ku bixiyaan oo ay cid gaar ah ku gacan siiyaan meelmarinta barnaamij doorasho oo aan heshiis lagu ahayn qodobka afraad waxaan ka digaynaa in xukuumaddu ay ku sii socoto cadaalad darrada ay ku qaybisay awood qaybsigii dowladnimo ee la wada lahaa sida golayaasha sharci dejinta fulinta garsoorka ciidamada shaqaalaha iyo dhaqaalaha dalka warmurtiyeedkeennu intaasuu ku soo gabagaboonayaa waxaana halkan ku qoran ilaa 200-300 oo qof oo saxiixayaashii saxiixay ah